بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. marka hore waxaan salaamayaa madax dhaqameedka mayorka magaalada Laascaanood, gudoomiyaha isuduwayaasha agaasimaha cusbitaalka Laascaanood, marti sharafta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. intaan hadalkayga gelin waxaan doonayaa inaan u diro taasi tiiraanya leh qoyskii uu ka baxay Jaamac Cabdiweli Sayid iyo dhammaan bahda caafimaadka reer Laascaanood, reer Sool iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. dilkaasi wuxuu ahaa dil xaqdarro ah Jamhuuriyadda Soomaalilandna tallaabo iyo ka qaadaysa dadkii falka ka dambeeyay. falkaasi wuxuu ahaa fal gaadmo ku jirto oo fulaynimo ku jirto oo gaalnimo ku jirto ayuu ahaa. hay-adaha amniga ee Jamhuuriyadda Soomaalilandna dabagalkeeda iyo inay abaalkooda dadka waxaa geystay mariyaan iyaan idinku ballan qaadaya oo ay daba galaan oo aanay ka hadhin. waxa weeyaan waxyaabahan laynagu saliday dilalka noocaasa. qaasim baa yidhi waa waxa abaar nagu saliday soof mareebta ah. abaaraha iyo aafooyinka dhacaya falalka caynkaas iyo dunuubta caynkaas iyo inoo keenaya meel baanu uga soo wada jeednaa. aadna waanu uga xunnahay. maxruumku 4 caruura oo 7 jirku ugu yar yahay ugu weyn yahay iyuu ka tegay. nin wanaagsan oo muumina iyuu ahaa. wasaaradda caafimaadka 20 sanadood buu u shaqaynayay. haddana sidaasuu inagaga baxay. ilaahay dhammaanteenba samriyo iimaan inaga siiyo. waxaan intaa ku darayaa socodkaygani wuxuu daaran yahay inaan gobolada bariga Sool, Sanaag iyo Togdheer aanu soo eegno abaaraha ka jira oo u kuur gallo oo wixii aanu ugu talagalay sida loo wado aanu aragno. in sidii loo wado iyo in si ka duwan inaanu xoojino wixii baahi yimaada iyo wixii aanu qaban karno. Sool iyo Togdheerba waan soo arkay. maantana Sanaag baan joogaa inaan dareenkiina qaato. Laascaanood inaan dareenkiina qaato oo dareenka shicibka qaato oo hawsha aanu anagu galay ee wasaaradda caafimaadka ku jirto wixii lagu kordhin lahaa iyo sidii loo sii tayeyn lahaa iyaanu halkan u nimi. abaarta ninna looga warrami maayo heerkay marayso. xanuunada ka dilaaca ee ay nafaqa darradu keento ee oof wareenka iyo jadeecada iyo kixda iyo shubanka iyo intuba ku jiraan. dadkiina waa dhimanayaan, xoolana way baxeen. ilaahay baa inaga jabin kara, laakiin inagu dadaal iyuun baynu intaynu awoodayna kari karno iyaynu sidaa u wadaynaa. qodobka labaad waxa weeyaan mashruuca dawladdu ay la wado sanduuqa horumarinta Somaliland. mashruucaas oo labada gobol ee Sool iyo Sanaagba regional hospitals ka hirgeliyay oo hawshoodii bilaabay. dib u dhaca la sheegayo waxyaabaha keenay, waxyaabaha sababay. mid weeye ee lacagta hawsha lagu gelaya lacag jeebka dawladda ku jirto maaha oo khasnada dawladda ku jirto maaha ee waa lacag ka imanaysa qaaraan bixiyayaal beesha caalamka ka mida oo asxaabteena ah. lacagtaasi sidii loo sheegay waxbaa iska dhimay. waxaa iska dhimay sarifkii ingiriiska oo ina siin jiray lacag iyo lacagtiyoodii qiimo jabtay oo sarif barar ku dhacay. dabadeedna aad bay isu dhintay. dawladaha qaar danaynayay doorashadeenu intaanay aada u fahmin abaartayna haysatay baaxaddeeda iyo ballaarhkeeda qaar danaynayay doorashadeenu inay dhaqso u dhacdo
iyaguna lacagtoodii way hakiyeen laakiin waxaanu rajaynaynaa inay hakisuun tahay oo lacagtaa iminka maadaama waqti la cayimay la soo dayn doono markaa sababaha way iska badan yihiin nin bay sodohin lagaday baa la yidhi markaasaa la yidhi sodohdu maxay kuu lagatay wuxuu yidhi anoo si xun u taagnaa iyo meeshoo sibiibixasho ahayd iyo sodohdoo sinsaarada taqaanay saddexdaasaa isu kay raacay waxa weeyaan saddex baa isu kaayo raacay oo sarif barar qaaraan bixiyayaashii oo lacagtii la habsaamay ama qaar hakiyey iyo abaar iyo aafo iyo lacag la-aan dalkii ka dhacday saddexdaasaa isu keen raacay wax dawladdu ay ka hagranayso waxqabadka maaha dhismada laascaanood ee cusbitaalkuna way soconaysaa waa la dhammaystirayaa qodob kale aan doonayaa inaan ka idhaahdo hadallo ka soo yeedhayay mucaaradku waddan kastoo democratigi wuu u baahan yahay awoodaha dawladda iyo dheelitirka iyo sinaanta mucaaradku wuu u wanaagsan yahay laakiin mucaaradku waa inuu had iyo goor xaqiiq ka duulaa waxay mucaaradku sheegayeen in lacagtii SDF-ta la joojiyey taas waxba kama jiraan lama joojin mashruucu intii loogu talagalay iyuu soconayaa markuu dhammaadana qaybtii labaad ee la odhan jiray SDF2 iyaanu qorshaheedii la gelaynaa markaa waxba yaan la odhan SDF baa la joojiyey ama waxbaa fashilmay arrintaa anigoo xogogaala inaanay waxba ka jirin cusbitaalkanina dhismayo ceerigaabana dhismayo iyaan idiin sheegayaa oo dabadeedna qaabkii iyo qalabkii iyo dhakhaatiirtii mid walba la keenayo loona adeegayo bulshada ka soo jeeda gobolladaas oo in fara badan adeegyada sugayay inay dawladdani noqoto dawladdii ugu horreysay ee hawshaa dhammaysay intaasaan hadalka kaga baxayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu